السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن صاحبيال سو دواada waa April 20 bishii labaad doorashadii iyo natiijadii ugu dambeysay doorashada dalka Jarmalka ayaan ku falanqeyn doonaa. sidoo kale waxaanu eegi doonaa arrimo fara badan oo markaas warbaahinta aad hadal hayso waxyaabaha isbedeli doona sida dhanka qaxoontiga tarxiilka job sector-ka oo xukuumadaha macquulka tahay la soo dhisay qaarkood ay doonayaan inay isbedel ku sameeyaan dhanka lacagaha iyo arrimo fara badan oo arrimahaasi ku saabsan iyo waxyaabaha qorshaha iyo balaanada ay wataan asxaabta markaasi la filayo inay doorashadan ku soo baxaan ayaynu halkan ku falanqeyn doonaa. marka hore aynu eegno natiijadii ugu dambeysay markaasi soo baxday natiijada rasmiga ah caadiyan isbedel uu iman doona xisbiyada qaar codadkoodu wali aan dhammaystirin laakiin codadkii intii ugu badneed waa la tiriyay oo natiijadii ugu dambaysta ahaa ayaa tan markaasi ku xisaabtan karaysa. watahay marka hore aan ku horeyno xisbiga hadda talada dalka Jarmalka haya SPD ama xisbiga casaanka ah waxa uu helay codadkii la dhiibtay ilaa hadda muuqaalkan waxaan diyaarinayaa duurnimadii maanta 16.14% codadkii la dhiibtay ayuu SPD markaasi helay. sidoo kale xisbiga Unionka la isku raacdo waa labada xisbi ee CDU iyo CSU ayaa iyaguna helay 28.5%. waxaana xisbigaasi uu noqonayaa xisbiga ugu codadka badan leh. hogaamiyaha xisbigaasina waxa uu noqon doonaa kanselarka dalka Jarmalka ee markaasi la doortay. sidoo kale xisbiga Grune oo kamid ah xisbiyadii hadda talada dalka Jarmalka hayay ama wali haya laga wareegin xilka ayaa waxa uu helay isaguna 11.6% codadkii markii maalintii shalay markaasi la dhiibtay. xisbiga FDP oo kamid ah xisbiyadii talada dalka Jarmalka hayay saddexdii sano u dambeeyay dalka soo hogaaminayay ayaa isagu waxa uu helay 4.33% taasi oo ka dhigan inaanu hal xildhibaan ku yeelan doonin markaasi xildhibaanada baarlamaanka cusub hadda markaasi la doortay. xisbiga AFD markaas leedo waa xisbiga cunsuriga ah ayaa isaguna waxa uu helay 20.8% taasi oo ka dhigan inuu helay codadkii ugu badnaa xisbigaas uu helo tan iyo laga soo gaaro xilligii dagaalkii labaad ee dunida waqtigaas oo xisbigii markaasi odaygii aad wada garanayseen uu doorashada ku guuleystay. sidoo kale xisbiga Linke oo isagu dhanka qaxoontiga aad u jecel isla markaasina aad ugu janjeera dhanka qaxoontiga ayaa isaguna waxa uu helay 8.7% codadkii markaasi la dhiibtay oo codad fara badan ayuu helay. xisbiga leehdo BSV gabadh saara leehdo siyaasiyadii markaasi ay dhawaan aasaasay ayaa isaguna uu helay 4.97% isaguna 0.003 ayuu ku waayay inuu xildhibaan markaas ku helo oo isaguna xildhibaan baarlamaanka kuma yeelan doono. sida la sheegay xisbigana aad ayaa loo buubuuninayay aad ayaa loo hadalhayay balse nasiib xumo waxa uu helay kaliya 13,500 oo cod oo kaliya. hogaamiyaha gabadha saara leehdo ee xisbigaasi aasaastay aad ay cadhaysantay waxaanay sheegtay inay markaasi maxkamad la kori doonto dowladda iyadoo oo waxyaabo fara badan ay ka cabanayso ay kamid yihiin in waqti ku filan aan la siino oo markaasi aanay ahayn waqti ku filan oo ay ku ololeyso aanay jirin markaasi oo doorashadu degdeg u dhacday. sidoo kale warbaahintuna ay aad hadallo xunxun markaasi ay uga sheegeen waa sida ay hadalka u dhigtay. isku darka xisbiyada kale ee iyaguna doorashada ka qayb qaatay ayaa iyaguna waxay heleen 4.59% guud ahaan xisbiyada kale oo dhan. total ahaan 6 xisbi ayaa markaasi sidaasi baarlamaanka uga mid noqonaya. haddaynu 6 xisbi xisaabino xisbiga SPD AFD oo isaguna baarlamaanka ku jira 2 Linke oo isaguna baarlamaanka ku jira 3 markaasi waxa saddexdaasi baarlamaanka ku jiraan Grune 4 Unionka 5 bay noqonayaan
marka si loo xisaabiyo unionka laba xisbi weeye oo xisbiga CDU iyo CSU laba xisbi la isku raado weeye laakiin xisbi kale ayaa ku jiro leehdo SSV xisbigaasi oo markaasi isagu markasta xaq u leh inuu xildhibaan markaasi ku yeesho baarlamaanka dalkan Jarmalka xisbigaasi waxa inta badan codad ma codeeyaan laakiin loogu talagalay hadii ahaan loo siiyaa muwaadiniinta reer Germany ee wadanka Denmark markaasi ku dhaqan waa tahay haddaba aan iminka hoos ugu dhaadhacno xisbiyada wax soo wada dhisaya waxaa jira saadaalo fara badan oo la saadaalinayo kaladha fara badan oo markaasi warbaahinta aad u hadal hayso waxa aad loo hadal hayaa kaladhka madowga iyo buluuga oo ah xisbiga unionka CSU iyo markaasi CDU oo unionka la isku raado iyo xisbiga cusuriga ah oo labadooda kala midna madow yahay midna buluug yahay laakiin waxa ugu badan oo saadaasha ugu badan markaas sheegaysa inay xukuumadda soo socota noqon doonto madow iyo markaasi casaan oo markaasi xisbiga hadda talada dalka Jarmalka ee Scholz oo xukuumadda la soo dhisi doono xisbiga hadda talada ku guuleystay caadiyan hadii laba xisbi ay ku soo biiraan sida Grune iyo SPD unionka afar xisbi ay noqonayaan taasi oo meesha qasi karta laakiin hal xisbi baa ku soo biiri doona xisbiga ugu cadalka badan leh waxaana la saadaalinayaa inuu noqonayo xisbiga SPD marka hadii ay dhacdo oo SPD markaasi xukuumadda soo dhiso sida ka markaasi loogu saadaalinayo unionka isku darsadaan sidee wax u dhacayaan qoxoontiga markaasi sidee u yihiin arintaas ayaynu eegaynaa marka hore aan ku horeyno xisbiga unionka CDU iyo CSU xisbigaasi aad ayuu dhanka tarxiilka ugu adeeg yahay oo lalihiisana waxa ku galay inuu tarxiilka aad u farabadin doono waxa kale oo ku galay lalihiisa inuu xuduudaha dalka Jarmalka xiri doono inuu isbedel ku sameyn doono sharcigii qoxoontiga ee markaasi dhalashada waqtigeeda soo yareynayay dhawaan la ansixiyay dhalashada 5 sano markaasi ka dhigay dadka qoxoontiga dalka Jarmalka ku suganna u fududeynayay inay dhalashada markaasi waqti hore ay ku qaataan inuu sharcigaasi gabi ahaan bedelo ayuu qolaha ku galay sidoo kale inuu badiyo tarxiilka ayuu ku galay inuu askarta hub iyo awood fara badan siiyo ayuu markaasi qolaha ku galay iyo arrimo fara badan oo kala duwan markaasi dhanka xisbiga SPD waa xisbiga hadda talada hayay waxa uu u oleynayay dhanka shaqaalaha in mushaharaadka la kordhiyo waxa kale oo oleynayay isla markaasina uu hirgeliyay in markaasi dhalashada waqtigeeda la soo gaabiyo oo muddo 5 sano iyo 3 sano dhalashada markaasi lagu qaato marka labada xisbi saasi aragtay ku kala duwan yihiin hadda maxaa dhacaya markay labadoodu isku darsamaan unionka iyo SPD markay isku daraan sidee xaaladdu noqonaysaa waxa la saadaalinayaa inay xukuumad dhexdhexaad markaasi noqon doonto wax way isbedeli doonaan laakiin wax fara badan ay isma bedelayaan xisbiga unionka waxyaabaha ololaha ku galay waxa uu rabaa inuu hirgeliyo laakiin suu hirgeliyo inuu burburiyaa waxa uu soo dhisay xisbiga uu talada markaasi la wadaagayo marka waxa ku xirantay inuu waxyaabo kamid ah waxyaabaha SPD dhisay inuu burburiyo waxyaabaha qaar la daayo waxyaabaha qaar wax ka taataabto waxyaabaha qaarna wax ku daro marka bal waxyaabaha inta badan warbaahintu aadka u hadal hayso waxa kamid ah dhanka tarxiilka waxa macquul ah inaan dadka iska wada tarxiilin laakiin dadka dambiyada gala uu xoog saaray inuu dhaqso u tarxiilo isla markaasina tarxiilkooda uu dedejiyo soo xisbiga talada la soo dhisay SPD-na uu markaasi niyad ugu dhiso isaguna go'aanadii iyo Allah wuxuu ku galay hirgeliyo si ay labaduba markaas u qaacaan dhanka dhalashada waxa laga yaabaa inay dib loogu laabto 5 sano dhalashada laga dhigay oo kor loo yara qaado lahayd 8 sano kuma celinayno 5 sanana waxa Allah ku galay inaan 5 sano ka badiyo marka aan wax isbedel ku sameeyno oo 6 sano ama 7 sano kale dhalashada markaasi ka dhigno talabteeda aad ayaa loo hadal hayaa oo waxana macquul markaasi dhici karaya waxyaabaha kale markaas iyaguna taabashadooda iyo ka hadalkooda u baahan waxa kamid ah karukaca codadka uu helay xisbiga markaasi cunsurga AFD leeyahay waa markii ugu horeysay oo codkaas helay ilaa dagaalkii labaad ee dunida markii xisbigan iyo xukuumaddiisii dagaalkii labaad ee dunida laga soo guuleystay markii ugu horeysay 20% codadka la dhiibtay markaas helo 100 iyo dheeraad xildhibaan oo markaas talada dalka Jarmalka iyo baarlamaankiisa uu ku yeesho
markiiba waxaa hadashay oo telefishinka Tag Show markaasi la hadashay hogaamiyaha gabadha ka ah xisbigaasi oo waxa ay coddeer ku dalbatay inuu xisbiga unionku iyaga markaasi xukuumadda uu la soo dhiso oo iyagu ay isku darsadaan isla markaasina xukuumad ay soo wada dhisaan si cad waxa u diiday unionka ama Mars ninka markaasi iminka kanslarka loo doortay inuu dalka Jarmalka ka noqdo iyaduna arintaas ay ka hadashay waxaanay sheegtay in iyadoo oo markaasi aad ugu hanjabaysa in haddii aanu la soo dhisi waayo ama xukuumadeeda ururkeedan xukuumadda ka mid dhigi waayo ama xisbigeeda xukuumadda uu ka mid dhigi waayo uu ka dhigi waayo xukuumad unionka iyo cusurka soo wada dhiseen in markaasi doorashada soo socota ay codadkeedu kor u kici doonaan isla markaasina ka aargudan doonto si kasta ahaato cabsi ayaa jirta haddii maanta xukuumadda unionku ay doortaan ee ay soo dhisaan haddii ay burburto oo ay fashilanto sidii tii hadda oo kale oo saddexdii xisbi ee hadda midoobay waa kuwii fashilmay isla markaasina midowgeedu burburay kadibna ay khasabtay in doorashadii waqti hore la soo galo haddii taas oo kale dhacdo waxa ay sii badinaysaa codadka doorashada soo socota ee xisbiga cunsuriga ah taasi oo aad looga cabsi qabo si kasta ay ahaato gobollo fara badan oo dalka Jarmalka ayuu aad uga awood badan yahay isla markaasina kaalinta koowaad kaga jira xisbigani waxa ugu cadcad gobolada bariga oo kamid yahay gobolka Thuringia oo kale waa xisbiga koowaad gobolka Sachsen-Anhalt Brandenburg iyo Mecklenburg-Vorpommern intaba waa xisbiga koowaad ee ugu codadka badan markaasi doorashadii hadda la galay si kasta ay ahaato iminka waxaan eegaynaa qodob kale oo isla doorashada markaasi ku saabsan unionka ayaa hadda bilaabaya sidee xaaladdu noqonaysaa maxaa isbedelaya sidee hadda kadib la yeelaya qodobkaasaan doonayaa inaan in yar dul istaago isla markaasina idinka jawaabo unionka ayaa markaasi hadda hawshiisii gelaya waxa aanu la fadhiisan doonaa xisbiga markaasi xilka ka degaya isla markaasina uu doonayo inuu xukuumadda la soo dhiso SPD xilka kama degayo kaliya Scholz ayaa kanslarnimada iska wareejinaya laakiin xukuumaddii way ku jirayaan marka xisbiga SPD ayuu la fadhiisanayaa waxa aanay halkaasi falanqayn doonaan ay ka wada hadli doonaan xisbiga SPD sida ay uga wada hadli lahaayeen una soo wada dhisi lahaayeen una qaybsan lahaayeen xukuumadda soo socota tusaale ahaan wasiirro inteleg ayaa SPD la siinaya wasiirro inteleg baa union ku qaadanaya wasiirkee qaadanaya sida wasiirro iyo in xaggan wasiirro B sida Soomaalida anigu iyo B da wax laga wada maqan laakiin wasiirro tun waaweyn iyo wasiirro tun yar hadda gabdho noqdaan maba tun waaweyn ala kulli xaal si kasta ay ahaato iga raali ahaada weli briyaha maalmuhu dambe aad baan u xanuunsanaa waa soo fiicnaanaya laakiin xogaa waa laga dareemayaa xakan baa weli aan jawiga degin laakiin waa fiicanahay alxamdulillah si kasta ay ahaato wada hadalkaas iyo heshiiskaas ay wada fadhiisan doonaan heshiis ayayna kala sheexan doonaan xisbiyada markaasi xukuumadda soo wada dhisaya heshiiskaasi wuxuu noqon doonaa mid publica marka ay wada fadhiistaan ku heshiiyaan mid kasta uu seexo public ayaa laga dhigi doonaa markaas ay warbaahinta loo soo gudbin doonaa markaas ayaynu falanqayn doonaa bal waxay ku heshiiyeen iyo waxay markaasi kala qaateen oo heshiiskaasi marka hore iyaga ayaa wada fadhiisanaya guddiye isu diraya isqancinaya isla markaasina wax ku wada heshiin doonaa hadduu eebbaha ugu diraado haddaba goorma xukuumadda cusub xilka la wareegi doontaa saadaasha la shaadanaya bisha Abriil soo socota dhexdankeeda ilaa dhammaadkeeda ayuu Mars markaasi uu xilka markaasi la wareegi doonaa oo loo dhaarin doonaa kanslarka cusub dalka Jarmalka guud ahaan xukuumadda la filayo inay dhacdo oo la soo dhisaana xukuumad markaasi dhexdhexaada ayaa la filayaa inay noqoto isla markaasina aanay buuq badan markaasi dhalin dhan kale marka loo eegana aan ahayn xukuumad jilicsan oo waxyaabo fara badan ku adag laakiin aan cabsi badan lahayn waxay ku adkaan doontaa qofkii dhibaato keena qofkii isagoo diidma haysta qof laamiga dhibaato ugu geysto kale qofkii jeel halkii looga diri lahaa hore imka laga tarxiilaya waxyaabo fara badan dhanka waxa laga yaabaa xitaa dadka soo galeeya hadda kadib in xuduudaha laga celiyo oo xuduudaha inay aad u adkeeyaan ba macquula arrimo fara badan ayaa maalmaha soo socda soo bixi doona haddii aad nala sii joogtid insha Allah marba wixii cusub halkan ayaad kula soo wadaagi doonaa idinka kaliya ata Mr. Meek waxaan idin kula dardaarmayaa laba talo oo yaro oo kooban laba mid xooga saaray inaad luqadda waddanka barataan oo isku daydaan inaad waddanka luqadiisa si wanaagsan u barataan sidoo kale inaad shaqo tagtaan oo iska ilaalisaan inaad xayl ku tiirsanaataan
dadka caydha ilgaara lagu hayn doonaa markaasi ka fiirsada oo arrintaasi xoogasha ugu haya iskana dhaafo inaad dhibaato geysataan sababta aad dhibaato geysatid oo booliska asbarataan dadka ugu horeeya ee isha lagu hayo ayaad ka mid noqon doontaa taas waa taladaydii aad iyo aad baad mahadsantiin saaxiibayaal soo duceeya insha allah khayr badan ayaan meel kasta aad joogtaan idin rajaynayaa habeen wanaagsan bye bye